dhan way naga dhimanayd waana meelaha dalkeennu hodanka ku yahay luqadeennu iyo dhaqankeennana laga dareemo caawina runtii waxaan arkaynay wax badan oo wixii aan arki jirnay ummadana lagu tusaaleeyo oo si fudud bulshadu intii loo khudbayn lahaa ama waxyaalo badan ay dhegaysan lahaayeen in fanka loogu dhex sheego wixii la sheegi lahaa dib u xoreyntii shabaabkii oo lala dirirayo askarigii oo furinta ku jira asagii oo isoo dhiibay maaragtay xanaaneynta loo samaynayo dhammaan hadda wixii in fudud in yarbaa wixii oo dhanna loo dulmaray marka runtii mar labaad iyo mar saddexaad waa mahad celinayaa dalku runtii halkaas uu jihaystay labadii sano lasoo dhaafay ama sanad iyo xoogaagii laakiin hadda khatar ka weyn ma yara khatartu khatar kale ayaa soo biirtay waa khatarta maayahan oo dhan laga hadlayay shalay ummaddu u banaanbaxaysay madaxweynuhu maanta ka hadlayay khatartaas waxaa weeye dowladda Ethiopia oo isku dayaysa inay inkirto jiritaanka dowladda Soomaaliya arrintu bad iyo saldhigii ma waxay inkirtay Ethiopia darkiiseen dhowr sano ka hor 4 sano u maleynaya ka hor mar bay maabka isku dartay labada maab abigaan markii waalan u yimid labada maab baa la isku daray mar oo Soomaaliya meesha laga saaray waa iska soo socday hadba waxbuu lahaa hadda wuxuu marayaa dowladda Soomaaliya joogtay intay inkiro inuu yiraahdo xoog baan dalkii qayb ka mid ah ku qaadanaya ma qawaaniga Muuse bixiyo dadka aad in looga hadlo laakiin meesha wax naga jiraan halkaas waa ninka gardarada ku socda oo yiri ilaahay xaqba ma hanba in 120 milyan ay la'aato dekad iyo dhul badeed inay la'aato xaqba ma hanba kor buu sheegay xaq iyo xaq darrada gar iyo gardarrada sidaas uu yiri hadda kor baarlamaankiisu ka yiri gar iyo gardarrada waxa weeye waan soo dhacsanaynaa buu yiri waxaa moodaa qaybtii gardarrada gartu waxa weeye moogtahay waa la baryootamaa dowladaha dhexda ku jira way baryootamaan oo farsamooyin kale wax lagu helaa laakiin waxaa moodaa qaybtii gardarrada inuu doortay oo halkaas aaday marka runtii dadka Soomaaliyeed waxa looga baahan yahay ninkaasna meel uu ka kaco meel ay fariistaan kama kacaan Eritrea 30 sano ka badan ku fadhiyeen oo halgan xoogan gashay qowmiyaadkiisa hadda sidoo u galaya loo jeedaa caana u lisimaayo dadka hadda heshiiska la soo saxeeday iyo maaragtay saxan dahaba mid labaad suuqa anigu aan rabo dekadaha suuqa ay rabaan Ethiopia haddana ayaga yiraahdo ila al-abad wixii iska qaata wixii soo tagsada macnaha ay ku fadhida dekadaadii ku furan ma jirto hatta businesska iyo economic iyo dhaqaalaha marka laga fiiriyo waa inaad tiri dukaankii aad lahayd badeecadaadii kala soo degso dukaankii aan qayb ka siiyay waliba qayb badan baan ka siiyay halka waxaad ku gado waa ninka rabtay inuu wax ka gatar runtii halkaas xigmad weyn kuma jirin arintaas marka waxay u baahan tahay oo ku indhadag yahay wali laakiin adduunku iyo dhan baa ka dabacbaaday oo ka dabaqaynaya arintaas marka waxay u baahan tahay dadka Soomaaliyeed feejignaan xoogan iyo aragti dheer ayay u baahan tahay hebel iska riix iyo maanta buundaan qaato arintaas ma taagna waxa dhexdeena waa la isaga soo laabanayaa waxa dhexdeena ay jiri jireen way jirayaan waxa dhexdeena waa waxaan iicun iyo wuxuu lagu dhameey karo laakiin waxaad aniga iga carartay abiibaan siinayaa caqli ma hantaas اعتراف هذه يضرب بكسي درنتاج الذنب أقبح العذر أقبح من الذنب عربتها ترى هذا عذر دارك أيها وكدرن بالذنب جيب كبا حنبا ذنب جبا أنت أسمرك رنتي وحين أوضع أنت عدتك الصوماليات عيدا كينا ويجوا هل كان قيمه ذي كل دونا دي أرجع وحوجن أي أوضع أنت هاي رنتي وحن إسلام وكون جوب دونا وسكود دونا laakiin dhiig badan iyo dhaawac badan iyo dhibaato badan ayay asaguna isku geysanaya dadka Soomaaliyeed oo u geysan doona taasna de ummadaha ku habsaamaya oo dhibaato badan
meel wax laga raba dekadna iyo wax la midana nabad bay u baahan tahay iyo isla ogolaash laakiin xoog baan badeecadii wax ku dhisanayaa xoog baan ciidankayga badda ku samaysanayaa ay ku keensanayaa xoog baan badeecadayda ku gudbisanayaa taas maba dhicinba meelay ka dhacday ma jirto caqliga businesska iyo caqliga caadiga xitaa waa ka fogtahay marka runtii aad iyo aad baa u mahadsantiin mawduucaas mawduuca taagan weeye inaan aad u feejignaano meel kastoo la isugu tagana in laga hadlay tahay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo taliyaha ciidanka asluubta taliyaha mahad oo runtii gobashaan caawi dhigay casuumadan dhigay riwaayadana lagu dahfuray goobtiisii halkaan ahayd oo asluubta oo ah inta badan asluubtu waa dhaqan celin weeye ummad xoogaa hallowday mid wax dilay mid wax dhacay mid wax shabaab oo wax qarxiyey baa la isugu keenaa halkan ayagoo habboon oo bulshada caafimaad qaba inay ku laabtaan marka shaqo fiican baa haysiin shaqadiina waxaa kusii darteen wacyigelintii waana taliyuhuna nin geesaa weeye waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in dad fiicanna ay meeshaan nooga soo baxaan oo shabaabka iyo dadka kalena in la kala duwo taasi imkaaniyaadii waxbay u khuduucaysaa bal kuwa hadlaysan oo maskaxda ka hadlaysan iyo kuwa iska caadiga ah oo dhaqan celinta taliyo iyadana hala kala farsameeyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin waana inii mahad celinaya waana ka cudur daaranayaa inaan hawl kale u soo baxday